Bismillahirrahmanirrahim. Saaxiibayaal, halkan waa warbaahinta xogta dalka. Qodobada aad ku daawan doontaan warkana waxaa ugu waaweyn faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ka dhacay agagaarka xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo kan maamulka Somaliland oo si isku mid uga tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Waraabe oo ka mid ahaa golaha wakiilada maamulka Somaliland. xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo kulankoodii 13aad ee kalfadhiga shanaad ku yeelanaya magaalada Muqdisho. kumanaan arday ah oo u fariisanaya imtixaanka midaysan ee shahaadiga oo sanadan ay qaadaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. isfaham waaga ka taagan doorashada maamul goboleedka Jubbaland oo cirka isku sii shareeraysa xilli musharaxiinta iyo xildhibaanaduba ay qabaan dhaliilo kala duwan. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo Xaaji Cabdi Waraabe ku tilmaamay nabadoon iyo muwaadin sare oo ka baxay dalka Soomaaliya. akhbaaraadka dibadda aad ku daawan doontaan warka warbaahinta xogta dalkana waxaa ka mid ah haweeney hooyadeed la kulantay kadib 103 sano oo isla aayeen, iyo sidoo kale dowladda Mareykanka oo mar kale eedeymo hor la u jeedinaysa dhigeeda Kuuriyada Waqooyi. saaxiibayaal, inta daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka warbaahinta xogta dalka. waa Sabti 11 May 2019. u diyaar garooba daawashada qodobadaas oo intaas ka faahfaahsan. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay agagaarka xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho. gaari lagu soo raray walxaha qarxa isla markaana laga maqlay jugtiisa inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka dhacay afaafka hore ee xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho. hal ruux ayaa dhaawacmay iyadoo aysan jirin cid kale oo khasaare ka soo gaartay qaraxa, waxaana la ogeyn ruuxa dhaawacmay waxa uu ahaa iyo sidoo kale cidda rasmi ahaan iska lahayd gaariga qarxay. gaariga ayaa sida la sheegay waxa uu ku qarxay afaafka hore ee xarunta CID-da oo ku taala halka loo yaqaano kilomitir 4 oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. qaraxa jugtiisa oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa goobta uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliyeed kuwaas oo baaritaano kooban ka sameeyay halka uu qaraxu ka dhacay. intaasi kadibna aan wax faahfaahin ka bixin qaraxaasi. si kastaba ha ahaatee, qaraxan ayaa ku soo aadaya iyadoo tan iyo markii gudaha loo galay bishan barakeysan ee Ramadaan ay yaraadeen qaraxyada iyo falalka lidiga kuwa amniga ee ka dhacaya gudaha caasimadda Muqdisho. dhanka kalena, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si isku mid uga tacsiyadeeyay Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Waraabe oo ka mid ahaa golaha wakiilada Somaliland kaas oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. war-saxaafadeedyo ay si kala duwan u soo kala saareen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale kan maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa looga tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdi Waraabe oo ahaa mudanihii ugu da'da weynaa ee ka tirsan golaha wakiilada maamulka Somaliland. Jimcadii ayuu ninkani ku geeriyooday magaalada Hargeysa kadib xanuun muddooyinkii ugu dambeeyay uu la dhibaatoonayay, waxaana labada mas'uul ee Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay Rabbi weyne kaga baryeen ninkan inuu u naxariisto isla markaana jannadiisa firdowso uu ka waraabiyo. waxaa la sheegay da'diisana lagu qiyaasay inay sare u sii dhaafayso 120 sano. mas'uulkan oo qayb ka ahaa golaha wakiilada maamulka Somaliland kaas oo ugu dambeyn xanuuno soo wajahay kadib ku geeriyooday cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. weli waxaad daawanaysaan warka warbaahinta xogta dalka. saaxiibayaal, markana isla arrimaha tacsida ayaan ku gudi jirnay. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay Cabdikariin Xaaji Yuusuf Cabdi Waraabe oo ka mid ahaa golaha wakiilada maamulka Somaliland. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxa uu sheegay inuu aqoon heer sare u lahaa mas'uulka isla markaana uu qayb ka ahaa indhaha ay shacabka Soomaaliyeed ku daydaan. waxa uu ku tilmaamay indho lagu daydo iyo qof hormuud u ahaa shacabka Soomaaliyeed. Rabbi weyne ayuu kaga baryay inuu ka waraabiyo jannadiisa firdowso isaga oo kaga baryay Allah subxaanahu wa ta'aala
in uu samar iimaan ka siiyo guud ahaan ehladii iyo qaraabadii uu ka baxay Cabdikariin Xaaji Yuusuf Cabdi Waraabe oo ahaa golaha wakiilada Somaliland qayb ka ahaa isla markaana ahaa mas'uulkii ugu da'da weynaa ee ka tirsan golaha wakiilada maamulkaasi. Isku soo wada duubo mas'uulkan ayaa maalinimadii Jimcada ahayd waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland kadib xanuun uu muddooyinkii dambeba la dhibaatoonayay. weli saaxiibayaal waxaad daawanaysaan warka warbaahinta xogta dalka. markana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa yeelanaya kulankoodii 13aad ee kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan kulankii 13aad ee ka tirsan kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka Soomaaliya kaas oo ajandayaashiisu ay tahay akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dakhliga iyo sidoo kale akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka shirkadaha. golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhowr goor hore kulamo uu ka baaqday isla markaana muddooyinkii dambe guddoonka golaha shacabka ay digniino kala duwan u dirayeen xildhibaanada aan soo xaadirin golaha shacabka kulamadooda ayaa waxaa la filayaa in ay soo buuxsamaan kooramka isla markaana ay soo xaadiraan kulanka golaha shacabka xildhibaano fara badan kuwaas oo ka doodi doona arrimaha loo asteeyay in kulanka looga hadlo. kulankan waa kulanka 13aad ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana sida la saadaalinayo shir gudoomin doona gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. hindisa sharciyeedka dakhliga ayaa ah mid la marin doona akhrinta koowaad iyadoo la filayo in wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigi doonto akhrin iyo sidoo kale qoraal ay ka soo diyaarisay dakhliga. kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaana waxaa la filayaa inay soo xaadiraan xildhibaanada ugu faraha badan isla markaana wasaaradda ganacsiga ay soo bandhigtay arrimaha ku aadan shirkadaha xilli ay jiraan shirkado fara badan oo ku kala yaala gobolada dalka kuwaas oo ka cabanaya duqeymo ay waqtiyada qaar u geystaan diyaaradaha shisheeye gaar ahaan kuwa Kenya iyadoo la filayo in xildhibaanada golaha shacabkana umuurahaasi ay mariyaan doodo iyo sidoo kale soo jeedimo aad u adag. dhanka kalena isla arrimaha Soomaalida ayaynu ku gudu jirnaaye kumanaan arday Soomaaliyeed ayaa la filayaa inay u fariistaan imtixaanaadka shahaadiga midaysan kaas oo sanadan qaadaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. imtixaanaadka oo bilaabanaya maanta oo taariikhdu tahay 11 May ayaa la filayaa inay qayb ka qaataan kumanaan arday oo dhigtay iskuulaadka sare ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale guud ahaanba gobolada dalka kuwaas oo si midaysan u qaadaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa la filayaa in imtixaanka ay qaadaysa wasaaradda lagu galo xarumo kala duwan oo isugu jira dugsiyo iyo sidoo kale xarumo jaamacadeed iyo xarumo dowladeed kuwaas oo guud ahaantoodba gacan sare ay ka leedahay wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo labaduba horey u sheegay in la xaqiijinayo amniga ardayda iyo sidoo kale amniga goobaha imtixaanaadka ardaydaasi ku galayaan isla markaana si heer sare looga taxadarayo. wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan gelisay imtixaanka iyadoo xallisay isla markaana ka soo gudubtay dhagxaan aad u adag oo ka horgo'na in la isku afkarto qodobada qaarkood oo ay qabeen maamul goboleedyada qaar wasaaradooda waxbarashada gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo ugu dambeyn arrimahaas oo idil oo xal laga gaaray. dhanka kalena weli waxaa is afgarad la'aan uu ka taagan yahay doorashada bisha August ee sanadkan ka qabsoomaysa deegaanada Jubbaland. muddo 3 bilood ayaa ka haray xilliga loo qabtay inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland balse ka hor intii aanan la bilaabin howsha isku dubaridka doorashada ayaa waxaa soo baxaya muran la xiriira doorashada. habraaca xulista xildhibaanada ayaa dood ay ka taagan tahay. soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland waxa ay ahayd inay qabsoonto bishii la soo dhaafay Abriil ilaa iyo haatanna ma cadda xilliga kama dambaysta ah ee xulista la soo afjarayo waxa uu marka koowaadba muran ka taagan yahay habraaca xulitaanka xildhibaanada. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi oo BBC-da u waramay ayaa sheegay in go'aanka kama dambaysta ah ee guddiga xildhibaanka noqonayo in uu leeyahay guddiga.
odayaasha beesha ayaa isaga oo la tashanaya odayaasha kale ee beesha waxa uu keenayaa 3 qof taas oo sababaysa in 3daasi qof midkood ay guddiga la baxaan ayuu yiri mar uu la hadlayay Xamse Cabdi Barre warbaahinta BBC-da. Liibaan Maxamed Colow waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta mucaaradka Jubbaland isna isagoo u waramaya BBC-da ayuu waxa uu tilmaamay in aysan ahayn doorashadu mid ka maran isla markaana la sheegi karo inay ka maran tahay faragelin musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. waxa uu ku soo aadaya dooduna ay taagan tahay iyadoo aysan jirin isla markaana ay taagan tahay shaqaaqa ka dhacday dhawaan garoonka diyaaradaha ee Kismaayo taas oo dhex martay askar ilaalo wahayd Cabdiraxmaan Seeraar oo qayb ka ah musharaxiinta dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada maamulka Jubbaland isla markaana taas ay qayb ka tahay caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland. si kastaba ha ahaatee doorashada ayaa qabsoomi doonta iyadoo ay weli taagan yihiin dhaliilo iyo doodo adagna ay ka imaanayaan qaar ka mid ah madaxda u tartamaysa musharaxnimada xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland. saaxiibayaal akhbaraadkaasi ayaa Soomaalida ugu waaweynaa isla markaana aad ku daawanayseen warka warbaahinta xogta dalka iminkana akhbaraadka dibadda. haweeney ayaa hooyadeed la kulantay kadib 103 sano ay islaayeen. haweeney u dhalatay dalka Ireland ayaa 81 sano jir ah waxa ay sheegtay in markii ugu horeysay ay la kulantay hooyadeed oo 103 sano jir ah waxay bilowday in hooyadeed baadi goobtay iyadoo 19 sano jir ah bilowgii sanadkan ayaa waxa soo wacay dhakhtar waxaana uu sheegay inuu ku guuleystay baadi goobtii hooyadeed. markii aan maqlay sidaas waxa aan go'aansaday inaan arko ayay sii tiri iyadoo hadlaysay. waxay u safartay Scotland bishii la soo dhaafay si ay ula kulanto hooyadeed Elizabeth oo maalintii Sabtida ah jirsanaysa 104 sano. waa haweeneyda ugu qurxan dunida, waa qoys aad u wanaagsan, aad ayay ii soo dhaweeyeen ayay tiri. si fiican ayay ii qaabileen waxaana hooyaday la ii sheegay wareysi aad u wanaagsan isla markaana aan la yeeshay su'aalo badan aan weydiiyay ayay tiri xilli ay sii hadlaysay. si kastaba ha ahaatee waxa ay qayb ka noqonaysaa dadweynaha dunida iswaay iyadoo arintan ay la yaab ka noqotay caalamka kadib markii gabadhani haweeneydan aan iraahday iyadoo 81 sano jir ah ay dib ula kulantay hooyadeed oo 103 sano jir ah oo isla aayeen tan iyo 19 jirkeedii. saaxiibayaal guud ahaan qodobkaasi dibadda ayaa u dambeeyay warkii aad ka daawanayseen warbaahinta xogta dalka. saaxiibadeena si ay u helaan isla markaana ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula socdaan warbixinada iyo wararkan halkan ku soo gudbino ha moogaanina inaad kanalkan subscribe saartaan. waad ku mahadsantihiin daawashadiina tan iyo kulanti dambana amaana Allah.